36 second kabacdi uu is dhisay applicationka marka waa kana hadda demogii waa run kareynay marka hadda haddii aad sans hadduu kuu shaqeeyey saan kuu shaqeeyey kaas waa okay wax kasta waa okay ku tahay waa si fiican ayaa usoo download gareysatay marka hadda tutorialka hadda bilaaweynaa marka waxaan ka bilaaweynaa documentationka ayaan ka bilaaweynaa documentationka hadda kan waa dhameynay wuxuu ahaa startingka marka widget catalog ayaan ka bilaaweynaa marka waxaan dhan waa all the widget iyo maaragtay aad ku dhisi lahayd application UI-ga user interface-ka marka waxaa haysanaa asset iyo haddii aad rabti inaad sawiraan iyo icon waxaas inaad soo saaratid waxaa haysanaa basics kuwan ayaan ka bilaaweynaa haddii aad rabti inaad u samaysid teleefanada maaragtay iPhone-ada qaas u ah hudhowti wuxuu ku siinayaa maaragtay iOS designkooda ayuu leeyahay oo widget waaye oo maaragtay sida iOS camal aa u samayn kartid layoutka kuwan waxa weeye rows iyo grid iyo haddaad rabti inaad samaysid haddii aad inputka waa kuwan waxa waaye user input iyo text input haddii aad rabti inaad kasoo qaadatid text haddii aad rabti inaad tusisid userka maaragtay message iyo waxaas haddaad rabti inaad tusisid iyo stylinka marka videogan waxaan ku bilaaweynaa basics ayaan ku bilaaweynaa marka basics markaa galno waxaa haysanaa appar kan waxa weeye maaragtay markaa telefonkaada maaragtay oo dhinaca ugu horeysa oo apparka sida menuga aad u heli kartid iyo maaragtay research iyo ama search haddaad rabti inaad samaysid kaas apparka waaye markaad ku dhufatid apparka wuxuu ku tusinayaa maaragtay leadingka kan waxa waaye menu bar hadduu rabo text messages oo appar titleka waxaas haddaad rabti inaad siisid iyo actions kuwan waxa weeye icon button iyo waxaas weeye example koodna waa kan asaana kuu tusinayaa don't worry kuwan waa dul maraynaa another column waxa weeye column another widget waxa weeye column kuwan waxa weeye multi children ayaa la dhahaa marka wuxuu multi views marka wuxuu qaadan karaa multiple children oo caruur badan oo widget ah ayuu qaadan karaa sida maaragtay text image iyo saas camal kuwaasna waa dul maraynaa insha allah containerkana waa box maaragtay oo markaad ku dhufatid containerkan maaragtay haddii aad only one child hadduu qaato wuxuu qaadanayaa all the available maaragtay height ayuu qaadanayaa marka containerka hadduu maaragtay caruur badan usan lahayn kabacdi all the available space ayuu qaadanayaa marka kuwaana waa dul maraynaa marka waxaan dhan waa all the widgets all the basic widget aa u baahantahay waa scaffold waxa weeye haddii aad rabtay applicationkaada maaragtay inuu lahaado appar a button a body marka scaffold waa maaragtay scaffoldna waa kaas weeye marka hadda example ahaana nii tusinaya blackboardka aadana so hadda waxaan isticmaalaynaa my blackboard so waxaan ka hadlaynay basic widgets aan ka hadlaynaa ani tusinayay marka hore micnaha waa maxay widget waa maxay widget waxa weeye maaragtay si aad u dhisi lahayd user interface for example maaragtay haddii aad rabtid inaa maaragtay information aad tusisid userska in your application waxaad isticmaali kartaa text widget text widget waa maaragtay text message ahaan ayaad maaragtay information iyo waxaas u tusin kartaa waxya oo useful ah another example of a widget waxa weeye padding so padding widget waxa weeye haddii aad rabtid space inaa maaragtay siisid your widget for example taxigan waxaa rabnaa inaa space siino from maaragtay the corners markaas waxaad isticmaalaysaa padding widget marka widget waxa waa si aad maaragtay u dhisi lahayd marka a lot of widget ayaa jira waxaa jira column widget ayaa jira column widget waxa weeye maaragtay every widget maaragtay all the children ayaad maaragtay vertical line weeye marka kan for example waxa waaye text widget kabacdi waxaa ka hooseeya button ayaa ka hooseeya kabacdi waxaa kasii hooseeya more widgets marka by default main alignment waxa waa vertical marka widgetyaasha way iska kala hooseeyaan sida san camal
marka for example this text ayuu wuxuu ka hooseeyaa taxigan buttonkaana kuwa kale kasii hooseeya marka columnkaas waa haddii aad rabtid a lot of maaragtay user interface haddii maaragtay iska kala hooseeyaan saas ayaa samayn kartaa oo main alignmentigana waxa waa vertical kan weeye vertical cross alignmentigana waa horizontal haddii aad rabtid widgetkan inaad maaragtay oo to the end haddaa sameeyo marka waxaa dhehaysaa cross alignment dot end marka all the elements to the wuxuu left side ayuu wada keenayaa marka kaasna example ahaan aan iga tusinay markii aan example in tusinayo hadda isku day inaad fahantid maaragtay waxay tahay another widget waxa weeye row widget waxa weeye horizontal way alignmentiga marka horizontal way marka saan weeye marka haddii aad rabtid laba text inay isku dhawaadaan oo maaragtay side by side ay isku dhawaadaan waxaad isticmaalaysaa row widget marka main alignmentigana waxa weeye horizontal marka hadda waxaa haysana for example a text widget kabacdi button kabacdi more widget ayaa sii sameynay cross alignmentigana waxa weeye vertical marka haddii aad rabtid widgetkan haddii aad rabtid inaad maaragtay centerka gelisid waxaa dhehaysaa cross alignment dot center marka horizontal way by cross alignmentiga marka kana example waan tusinaa suu isticmaalo last one aan raba inaan tusiyo waa scaffold waxa weeye maaragtay widget weeye oo maaragtay waxay sameysaa it implements material design marka scaffoldkan wuxuu la yimaadaa widget yaro badan for example haddii aad rabtay applicationkaada inaad maaragtay outbar lahaatid waxaa siinaysaa outbarkaas wuxuu leeyahay menu buttonkaas haddii aad rabtid inaad tusisid waxaa dhehaysaa drawerna waxa weeye maaragtay another widget weeye uu la yimaado maaragtay scaffold haddii aad rabtid bodygaada wuxuu noqon karaa buttomo badan text widget ayuu noqon karaa kana wuxuu noqon karaa button right kuwan waxa weeye column right haddana waxaa lahaan kartaa row widget ayaa siin kartaa xataa inta row widget ayaa siin kartaa marka widget iyo badan ayuu la yimaadaa scaffoldka haddii aad rabtid navigation bar haddii aad rabtid maaragtay button iyo for example home page location camal haddii aad rabtid userka profile kuwan dhan waxaa la dhahaa bottom navigation scaffold ayuu la yimaadaa bottom navigation marka haddii aad rabtay applicationkaada waxaad isticmaalaysaa scaffold hodhowd wuxuu ku siinayaa upbar for your application wuxuu ku siinayaa body aad maaragtay u isticmaali kartid money widgets sida maaragtay row column kuwaas camal haddii aad rabtid inaa yeelatid navigation bottom navigation scaffold ayuu ku siinayaa similar scaffold iOS-ka haddii aad rabtid inaa u samaysid scaffold waxaad isticmaalaysaa Cupertino page scaffold wax la dhaho ayaad u isticmaalaysaa sidoo kale kana waa similar way way isku dhow yihiin laakiin waxaad u isticmaalaysaa only iOS base ayaad u isticmaalaysaa marka intaan waa maaragtay basic widget weeye aad u baahan tahay markaad rabtid ina application dhistid marka kuwan ayaan maaragtay example maaragtay ka tusinaynaa hata saad si fiican usii fahantid